السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بالشوين تصومالية آديات بني سلامنا كسر هذا كمبني جيني فوريفر ليفن برودكت يا علابات كنا قيبة كميدا ما أنت حكن وحن آديات إني جوهم بليان إنهم بليان الناس إنه وحوي لما بالشوين تاني أينو أكسونين إني لفحنون كعوضان مرغية وحن مرغية حنون كوحيابات كاي إن ما أنت أي سيدا أي كجت خلوص الدونان مسيج كقرح بدن لنورتني ودنا ما noqdaan alaabaadkeena inuu loo isticmaalo aad iyo aad bulshadeena run ahaantii aad iyo aad ugu fiican tan waxay ka kooban yihiin alaabtan saddexda qaybood oo kala ah waa calciumti oo kiniina oo la liqayo oo calciumtina sidii ogsoonahay qofka mar walba jirkiisa way ka baxdaa inakuna dad mar walba caanaha iyo hilib iyo waxyaabaadka isticmaalayna manihin tanna waa calciumti oo dareera waa calcium oo dareera waxa la yiraahdaa forever freedom oo waayadiyo dareerayo la cabayo tan habeenkii aroortii laba mar buu isticmaalaya tan 60 ml buu habeenkii aroortii isticmaalaya kiniinkanna habeenkii aroortii xabad buu qaadanaya intaas run ahaantii kaga filan sida ogsiyoontihiina alaabaadkeenu inaka calaamada ma baabina haduu maanta wax qofku xanuunsanayo inta ka baabiso hadana kuma soo noqonayso laakiin lafta xanuunku jirka kaga jiro ayaynu ka saarayna lafta xanuunku jirka ku jiro waxaan uga jeedaa qofka lagu xanuunayaan de waxa uu keentay ugu weyn waxa weeyaan waa calciumtiisa amba infection ha noqdaan rheumatism iyo waxyaabaadka qofkii ku dhacay amba calciumti ha yaraatay dhibaatada ugu weyn waa calciumti min jirkeenu ku celinayna kadib markaynu ku celino qofkii saasay dhibaatada kaga baxaysa aad baan soo dhaweynana ku soo dhawaada kaminigeena forever life product. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.